يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu maraynaa jimcihii u horeeyay bisha Ramadaan. ilaahay baynu baryaynaa siduu inoo gaarsiiyay inuu noogu dhammaystiro inagana aqbalo. waxaynu baraarujinaynaa dhowr arrimood. arrinta u horeysa waxa weeye inaynu dareenno inaan ka dulboodin nicmooyinka Allah uu inoogu deeqay faraha badan ee dad badani aanu haysanin. nicmada koobaad waa ta islaamnimada. ha yaraysanin. waa awla nicam wa akbaruha wa kubraha. nicmooyinka ta u weyn waa diintii islaamnimada. adduunkan aynu ku noolahay intiisa faraha badani sida la ogsoon yahay 3/4 wax gaadhaya 4 meelood oo 3 baan ilaahayba rumaysnay inuu ka gaaloobay subxaanahu wa tacaala. marka inuu kugu daray rubuca rabbi rumaysan wax aad u qaaliya weeye. in fara badanna qur-aanka kariimka ah ilaahay wuu inoogu mana sheegtaa nicmada iyada. alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqaraar. nicmadii ilaahay bal la yaab kuwa ku bedelay gaalnimo ayay nicmadii ilaahay ku dooriyeen. gaalnimona way bedel qaateen, nicmadii islaamnimadana way ka tegeen, reerahoodiina intay kaxeeyeen bay naar dhex fureen, ay dhex dejiyeen. wax lala yaabo wey. nicmada aynu haysanaa walaalayaal waxa weeye nicmatul hidaaya. dad badan oo muslimiin sheeganaya ayaa haddana caasiya oo rabadaantaa soo gashay waxay isku dayayaan sida xun inay uga faa'iidaystaan. waxaa laga yaabaa inuu qofku ka fikiro xaaraantay dadku ka xidhan yihiin sida adigu lacag uga samaysaa. idan markaa nicmatul hidaaya wax sahlan baa inuu ilaahay ku hanuuniyo tubta toosan kugu hagaajiyo fursadaha daacada uu ku waafajiyaa wax qaaliya weeye. waxaa ka mid ah nicmooyinka ay tahay inaynu ku baraarugno inuu ina soo gaarsiiyo Ramadaan. waxaynu ogsoonay dad badan oo walaalaheen ahaa oo kal hore inala soomay oo inala ciiday bal ehelka asxaabta ummadda taqaanay dib u raajac cajaladaada dib u celi intii adduunka ka tagay oo maanta kitaabkoodii la laabay oo aan wax khayr ah oo loo qorayaa jirin oo jeclaysan lahaa maanta in ifka joogi lahaayeen camalkaaga oo kale wadi lahaayeen. idan markaa nicmo weyn weeye. waxaaba laga yaabaa in laylatul qadriga aad ku beeganto cimrigaagu dhowr iyo 80 sano hore u kaco oo fursadda dhinaca fiican aad uga faa'iidaysato. idan markaa taasina ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala. nicmooyinka la yaraysan karin waxaa ka mid ah nicmada caafimaadka. cuudka iyo xooluhu ina siiyey, caruurtu inoogu deeqay, nabadgelyadu ina siiyey iyo jamacoo inoo oogan. caalamulislaami waa laga yaabaa ama adduunyadaba inta jumcaha aynu joogno masjid camiraysa ku tukanaysa inay naadirta ay yar tahay. xarameynkiibaa xidhan ood arkaysa. markaa waxay dadkii ka cabanayaan inay sijaadii isku haystaan iyagii iyo ciyaalkii iyo dumarkii. in sacuudiga igala soo hadlaya wuxuu ihi nicmada ilaahay ugu mahadnaq. sijaadii baan isku haystanaa ciyaalku waa sijaadaydi waa taydi. oo runtii la isku daalay sidii xabsi loogu jiray oo rag iyo dumarkii iskarahaysteen sidii guriga la isu horfadhiyay. marka min nicam illaah ayay ka mid tahay. ilaahayna waxaynu baryaynaa oo aynu khalaawada u galaynaa waxa dadka guryaha ku xareeyay inaanu inagayna soo marayninba. ilaahay saasaynu baryaynaa oo aynu ku ducaysanaynaa subxaanahu wa tacaala. markaynu nicmadooyinkaa ka soo gudbno walaalayaal waxay nala gudban ikhlaasu niya wa sidqu tawajuh ila allahi subxaana. niyadeenna inaynu wanaajinno. ilaahay baynu marti u nahay inuu inaga dhigo kuwa mudan oo u maamuuso oo aynu qalbigeena si fiican ilaahay ugu soo jeedin
oo aynu samaysana khabi'atan min alcamal camallo inaga iyo ilaahay naga dhexeeya oo aanu istusnimo iyo ismaqashin midna ku jirin oo ayaamaha inagu adkaato arrintu aynu ilaahay ugu tawasulno subxaanahu wa tacaala arrinta had iyo jeer camalka qiimaha u yeeshaana waxa weeye niyad samaanta iyo daacadnimada iyo ikhlaaska innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin camalka aqbalkiisa iyo ijaabadiisuna waa arrinka ay ku xidhan yihiin waxaa laga maarmaana walaalayaal inaynaan noqonin janno kabood iyadoo jannadu afka kuusoo kala hayso kuba diyaarsan haddaad ka dulboodo musiibo weyn weeye nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddu waaniyo waxau ihi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummaddani jannada way wada diyaarsantay mid iska diida mooyaane kaadhkeeda mid waliba u qaadan karaa jannada laakiin ka iska diidaa dee u weydaaran man adaacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa qofka aniga adeeca jannada wuu gelayaa kii caasiyaana wuu ka booday nebigu saasuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam marka furaha jannada miftaaxeeda lasii qaadanaya waxa wey in ilaahay la caabudo oo la adeeco subxaanahu wa tacaala arrinta afraad aynu baraarujin lahayn waxa weeye laabudda an nakuuna daakiriina laa ghaafiliin waa inaynu noqonno kuwo qalbigu u safaysan yahay oo aanu ka qallafin oo aanu ka qomboobin oo ilaahay xuso subxaanahu wa tacaala oo aan ka dhacsanayn dikriga ilaahay iyo xuskiisa inaad ilaahay xusaysaa wax weyn weeye waa fadli weyn oo ilaahay uu bixiyo subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila وقال أيضا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آياتها قرآن كي ذكر فريات بو بدين وحين كنت ينينا رسول كان صلى الله عليه وسلم عائشة وحي هذا كان يذكر الله على كل أحيان حالد ولو نبي كسو جاي هيبة عرب كيسو ذكري كقينا من أحب شيئا أكثر من ذكري قفك هدو شيء شعلاده أما عد شعلاده شيء جيدو بديا inaad ilaahay xusaysaa waxay sheegaysaa in qalbigaaga ku weyn oo aanu ka maqnayn oo aad jeceshahay bay sheegaysaa intaasina waa darajo la gaadho qaaliya marka xataa hadduu jinaabo leeyahay haddaanu daahir ahayn iyo rasuulku dikriga ilaahay marnaba ma weydaaranayn bay leedahay Caaisha wuxuu tilmaamay dadku inay tartanka ugu badan ay cid kaga dheereeyaan inuu yahay xuska sabaqa almufarriduun qaaluu wama almufarriduuna ya rasuul allah qaala adhaakiruuna allaha kathiiran wadhaakiraat dadka rag iyo dumarba ilaahay xusaya dadba way ka dheereeyeen la kala dheeree si orod ma aha cagaha laguma ordin laakiin carabka lagu orday iyo camal baa lagu orday marka dadka ilaahay xusaya cid walba way ka dheereeyeen buu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam marka xayaatadani iyo noloshani haday dikriga weydo waxay noqon doontaa mid qofku ka murugoodo maalinta qiyaamaha yaa laytani qaddamtu li hayati qul daradayde balinta noola ma wax wanaagsan qadima buu leeyahay waxaynu ku dadaalaynaa akbaru dhikrin wa ahsanu dikriga ka u wanaagsan ee u qiimaha badan oo quraanka ilaahay inuu qowlkeenu badan yahay in quraanka aad u akhriyeen habeenkii maalintaba qofku ilaahay xaafid ka dhigo waa fadli ilaahay qofka quraanka akhri kara waa fadli ilaahay kii kalena intuu ka yaqaanaa uu akhri doona inuu bartana uu isku day nicmo aan laga qadi karin weeye oon mudnayn qalbigaaga iyo qowlkaaga inay ka maqnaato quraanka marka jadwal baad samaysanaysaa aad ku howl gasho intee baad quraanka akhriyaysaa intee jeer baad dhamaynaysaa shanta salaadood haddaad midba jus dabageliso dee 6 jeer baad dhamaynaysaa 5 jeer baad dhamaynaysaa maalintii bishii ramadaanna 6 jeer baad dhamaynaysaa idan waxa weeyaan waxaad iyo aad u qaaliya bisha ramadaan yaan odhanayna tirada quraanka markaad dhamayso shantii salaadoodba mar 6dii cishaa mar baad dhamaynaysaa marka intaasoo jeer baad fursad u helaysaa inaad bishii ramadaan aad dhamayso quraankii kariimka ahaa waana wax qaaliyo intaad wax kale ku jiri lahayd qowlka ilaahay inaad ka agdhawaato rabbi la faqdo la sheekaysato wax qaaliyo weey waxaad ku bushaaraysanaysaa xadiidku nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam saxiixa ahaa qofka xaraf akhriya 10 ajri buu leeyahay nabigu alayhi salaatu wasalaam wa hal xaraf 10 ajri baad ku leedahay quraanku waa intee oo xaraf 300 iyo siyaadada kun xaraf uu yahay baa 10 lagu dhufanaya horay baad ka dharagtay baa koonkaagii waa buuxsamay waxaynu baraarujin lahaynoo lixaad shahru ramadaan fursa lidacwati ila allah inaynu ilaahay dadka xaqiisa ugu yeedhno shaydaanka iyo dadka sharka wada waxay isku dayeen inay ilaahay ka duwaan dadka oo ilaahay iyo dadka kala dhex galaan marka bisha ramadaan
qalbiyadii way soo jeedaan dadka qalbigoodii waa qoyan yahay marka inaynu dacwadda uga faa'iideyno fariinta aad isku daydo inaad qaybtaada gaarsiiso ehelka asxaabta jaarka dadka isku shaqada tihiin haddaad tahay qof farsamada yaqaana wax lagu baahiyana waxaad gaarsiin doontaa dadka bishaa dhexdeeda wixii khayr leh nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu dhaartay baa wuxuu leeyahay fa wallaahi laa yahdi allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumuri nicam geela cascas waxa kaaga fiican inuu qof qura ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyo waa qof keliya miisaanka xasanaadka lagu saaraya ajrigii aad ka heshay maalintaa ka ah waxaynu baraarujin lahayn oo toddobaad meesha ugu mudan inaad wax ka hagaajiso oo aad wax ka toosiso waa gurigaaga dad badan baa guryaha ku xidhan oo yidhi jumcadii halkaasaanu ku tukanaynaayo jamicii halkaa la soo fadhiyo oo dani ay isbaday dadkii ay mas-uulka ka ahaayeen marka muddadan bisha ramadaan lagu jiro waa inaad isku daydaa wakhti aada u badan inaad uga faa'iidayso ehelkaaga iyo ubadkaaga iyo ummadda guriga kula joogta inaad ilaahay xaggiisa u jeediso subxaana wa tacaala waa mas-uuliyadaha ilaahay uuna weydiin doono maalinta qiyaamaha runtii qofkii ku fashilmaa guuldarro badan ay ku dhacayso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naar ka badbaadiya naftiina iyo ehelkiina marka halkaad musalsalaad iyo waxun ay daawadaan iyo sheeko bilaa macnaah iyo macaasi aada hormuud ugu noqon lahayd khayrka hormuud ugu noqo oo waa inay kuu noqotaa fursadaad hore u weydayoo ehelka iyo ubadka ay isku la-aydeenoo maanta aada u heshay idan markaa waa inaad fursaddaa ka faa'iidaysataa ciddii aad ku soo xidhi karta iyo cajaladahaad siin karta iyo casharaday daawan karaana inaad ka dhargisa isku day waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga far baa ilahay uli salaad adiguna ku adkow oo ku dadaalo ku sabir idan arrimaha dhowrkaa baynu baraarujin lahay si aynu bishan ugu ayno oo qofkii aan uga murugoonin maalinta qiyaamaha fursaddii uu dayacay dheerayn mayno khudbadda kolley maadaamaynu nicmadaa ilaahay helay waxa mudan inaynu inaguna masaajidada kolle xoogaa culays ka fududayno oo hurdadii la seexan jiray masaajidkana xoogaa laga daayo aad iyo aad bay ayay u habboontahay taasina maadaamaynu jumcihii iyo jamcii helay اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا من الأمراض والأوبئة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة